الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحين تحكم مدحوينها لما شعبك الصومالي ميل جوجان بعد الصحافة هذه على ما سنتين شركين الجرائد وحكو سابسين هاي وهي كلا عايشة شلي مقالة المقصية بين هوري iyo aragtida musharaxiinta sida loo gaari karo xal ku aadan hanaanka doorashooyinka. marka hore waxaan rabnaa inaan mahad celino shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sidii garab u istaageen fikirka wanaagsan ee ah in la helo doorasho xor oo xalaal ah si dowladnimada hanaqaadka ay sii hanaqaado looga mahad celiyo taageeradooda looga mahad celiyo soo baxa ama isku dayga taas waa qodobka koowaad. qodobka labaad inaan u tacsiyeyno cid kasta oo dhib ka soo gaaray gobolkii aan lahayn farmasinyada ee la gaarsiiyey dadka Soomaaliyeed ama damiirkooda la gaarsiiyey ama maskaxdooda la gaarsiiyey ama jirkooda la gaarsiiyey xorriyadooda la qaaday inaan uga tacsiyeyno. aad iyo aad ugu xunnahay wax shacabka Soomaaliyeed u qalda ma aha waxay sugayeen ma aha. Soomaaliya waxay xor tahay 60 sano in ka badan waxay soo burbursanay waqti dheer. maanta waxay ahayd dadka Soomaaliyeed inay xorriyadooda dareemaan meel ay joogaan laakiin nasiib darro waxaad aragteen dhacay. qodobka mahadcelinta markaan ka soo gudbo madashu qiimeyn iyo falanqeyn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadyada waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah dastuuri ah caafimaad ah u wanaagsan dalka qofkii doona madaxa ahaado isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xor u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabad ah. waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen ay ka shaqaynayeen loo soo weeraray naftooda halis loo geliyey dadkoodii la dilay la kala ceyriyey. mabda'aas waxaan u aragnaa mabda' wanaagsan dhaxalgal ah dowladnimada u fiican aan marnaba laga tanaasuli karin inuu yahay. wuxuuna xiriir la leeyahay laba shay oo waaweyn mid waa hanaanka dowladnimada midna waa xorriyadda qofka oo aan labadaba laga tanaasuli karin. arrinta saddexaad waxa waaye mas'uuliyadda dhammaanteed waxay saarayaan dowladda. ciidamada la adeegsaday oo loo adeegsaday dadka inay dilaan argagixiyaan joojiyaan xorriyadda qaadaan madaxda ay amar qaadanayeen xilkoodu waa dhammaaday. laba shay ee halkaas isku darsantay madaxdii oo xilkeedu dhammaaday iyo falka la sameynayo aan sharci ahayn. labadaas waxay ku yihiin dowladnimada Soomaaliya dhaawac aad iyo aad weyn. waxaan wada ognahay waqtiga iyo dadaalka laga galay dhismaha ciidamada qaranka iyo meesha laga keenay. maanta waxaa nasiib darro ah wiilashii dhallinyarada ah oo aan ku naaloonay inay qarannimada dibadda u aasaan inay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ah oo raba inay dareenkooda muujiyaan doobna ka qaba nidaamka doorashooyinka iyo dib u dhaca inay soo wadaan. waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqo ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci wuxuu ku dhisan yahay mabaadi' dowladnimo inuu ka gudbo wuxuu noqon ciidan ma aha. halkaas in la fahmaa ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci hadduu sharcigaas ka gudbo ciidan ma aha. wuxuu sameynaya waa fal dambiyeed qofka sameeyey iyo qofka soo diray labaduna waa dambiilayaan. ilaahay idankiisa maalin waxaa imaan doonta cadaaladda la horgeyn doono. shalay markaan dhisayna si hagar la'aan dadnimo ah ayaan u dhisnay waa u hagar baxnay. maanta in loo adeegsado aad iyo aad iyo aad ugu xun. waxay jebiyeen hankii qarannimada waxayna dalkan u horseedeen niyad jab iyo dadka Soomaaliyeed inay ka hanjabaan ciidamada qaladka sida. sidaas darteed waxaan leenahay u soo laabta caqligiina ku soo laabta sharciga. annagu waxaan dhisayno iyo waxaan u taaganahay waa dowladnimo
haddaad u haysatin inaan dana gaara ka shaqaynayno dana gaara kama shaqaynayno danahayna waan ka soo tagnay waxaan u taagannahay qarannimadu inay istaagto dalka in doorasho oo galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waay yaa ku guulaysanaya macno gaarana uma samaynayso waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arrinta xurriyaadka madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambaysa waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday arrintaas diyaar uma nihi inaan ka kaftan waxaan rabnaa inaan ku celino banaanbaxeennu waa banaanbax nabadeed waxaan ku muujinaynaa dareenkeenna dareenka ugu badanna waxaan ka qabnaa madaxweyne xilkiisu dhammaaday ee aan oggolayn doorasho ee aan oggolayn banaanbax sida doorasho loola geeyo waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaala oo loo simanya mana muuqata arrintaas xuquuqdaas asaasiga ah oo qof kastoo soomaaliya uu leeyahay waxaa sharaf noo inaan hogaaminayna maanta ilaah ku mahadsan shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u jeedino mar kale banaanbaxyada laga soo qayb galo xurriyaadka hala taageero maantay qabasho leedahay hadday halkaan dhaafto qofka maanta shabaab asoo kor taagan waxaasoo tignikaa keena inuu dad ku dilo dadkaasoo dalbanaya xurriyad iyo banaanbax ani waxaan aaminsanahay lama aamini karo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkii rasmiga ahaa ee golaha guddoomiyaha ayaa halkan ka sheegay waxa aan anaga aan rabnaa waxay tahay inaan warkaas soo xoojiyo si adkeena ayaan rabnaa wixii shalay iyo habeen hore dhacay intii waxay caddaynayaan waxaan anaga hore u ogeyn ee sii caddaynayaan oo shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka bay u caddeeyeen anaga hore waxaan u ogeyn farmaajo inuusan rabin doorasho lagula tartamo oo xaq oo xalaal inuu qabto inuu rabo inuu waddankaani ama extension ha ku sii joogo ama doorasho aan xalaal ahayn oo boob ha ku sii joogeen inuu meel ka aado talada iyo xukunka dalka inuu meel ka aado inuu sariyo anoo awal waa ogeyn waan noo caddeey laakiin waxaa alxamdulilaahi ah shalay inuu dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo beesha caalamka iyo ummadda dhan u caddeeyey inuusan meeshaas ayada ah usan u socon kadib markii mudaharaad nabadeed iyo dad nabad u socda oo mas'uuliyiin Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed uu xabadda nool u adeegsaday iskuna diyey inuu dilo waxaan anagu aaminsanahay farmaajo in mandatekiisii iyo sharciyadiisii ay dhammaatay 8 February shalay oo 19 Febraayo ay ahaydna murashaxnimadiisa dhamaaday oo soo xiray baabkii murashaxnimadiisa saadaradeed sharciyadiisa madaxweynenimada ma jirto murashaxnimana shalay ayuu soo xiray maadaama uu noqday in dambiile ah oo faldambiyeed iyo dhiig faraha kula jira in dhiig iyo faldambiyeed faraha kula jirana in lagu abaalmariyo inuu madax sii noqdo suurtagal maaha sabab inuu madax sii noqdo loogu aamini karaa ma jirto anagu waxaan rabnaa dowladnimo Soomaaliyeed inay taaba gasho anagu waxaan rabnaa muqaadiyad iyo xorriyad iyo dal iyo dowladnimo dhisanta ayaan rabnaa intaan odayaasha oo saaxiibada ay hortaagan waa dadkii dowladnimada Soomaaliyeed ee maanta aan ku nooloonayo iyo hay'adaha iyo institutionada noo dhisay maanta aan ku nooloonayo soo dhisay nin walba maalmaha ka mid ah ayuu hay'adaha dowladdu joogay dhagax baa wuxuu ku biiriyay dowladnimada Soomaaliyeed qof kale oo ka dambeeyana dhagax baa uu ku sii biiriyay sidaasay dowladnimada maanta aan joognahay ayay ku soo gaartay nin walba anaga naga mid ah wuxuu marashax u yahay meesha maanta ay joogtahay meel ka sii sarreysa ama geyn kartaa waa naguma jiro qof dalka inuu dib u laabto ficil ama haba yaraatee naguma jiro nagamana suurtagal eh lahayd ma ahayd farmaajo waxaan dhihi karnaa shalay
يا هبين هو الوحي أوسمي حينداب كدول الموقع ذلك أنا بقول طبعا إنه دايركشن كله أو دجال السكية يبربر يبابا إنه أجيديو أيوه دمعي لكن الحمد لله يا شعب الصومالي أنا ربنا إني runtii ku jiiftaan directionkaas dalka uu rabo inuu u leexiyo haddaan la wadi lahayn oo habeen hore wixii dhacay wixii shalay dhacay aan anagu directionkaas inaan la aadin aan la wadi lahayn maanta muqdisho siday tahay iyo dalka siduu yahay ma ahaday garashadeena loo diidaysa mas-uuliyadeena loo diidaysa dadnimadeena loo diidaysa in uu nagu qasbo naguna riixo meel aan sax ahayn oo aan dalka nagana u roonayn dadka nagana u roonayn inuu nagu riixo garashadeena diidaysa laakiin waxaa xaqiiq ah asagu waxa uu go'aansaday waxay tahay ama inuu kursiga joogo ama inuu dalkan dagaal sokeeyey iyo burbur iyo baaba geliyo go'aansaday waxaana laga rabaa marka dhammaanteen shacab iyo mas-uuliyiinba inaan ninkaa asaga ah gacmaha qabanno suusan dalka naga nooga baabi'in dowladnimada nadan uusan nooga burburin inaan gacmaha qabanno ayaa laga rabaa annagu marka waxaan u taaganahay waan murashaxiin haddaan nahay u taaganahay ka soko inaan murashaxiin nahay dalka iyo dowladnimada inaysan naga burburin dalka iyo dowladnimada waa burburaysaa haddii dictatornimo dalku tahay dictatornimada muddo kastoo jirtaba natiijadeeda waa la yaqaanaa waa dalku duun dowladnimadu duun meeqa dal ayaa dictator ka talinaya oo afrika ugu dambeeyna ay duunta kenya ka mid ah dictatornimada natiijadeeda waa sidaas ma hadli kartid dareenkaaga ma cabiri kartid xorriyad uma noolaan kartid aniga keliya waxaan sheegaa run ah wax dowladnimo iyo dal uu ku dhisnaan kara ma aha maantayna qabashadeeda haddaan maanta qofka noocaasa gacanta la qaban maalinaan la qaban karin oo dalka iyo dalka uu naga burburinaya ayaa la gaaraya annagu marka waxaan qabnaa waxaan diyaar u nahay muddadii hadda lasoo dhaafo dhowrka sanada ama labada sanaha nin walba annaga naga mid uu kaambeynka ugu soo jiray in dalkaani doorasho galo lagu tartamo qof inteena murashaxiinta ka mid ahna uu guulaysto laakiin nin waxaan ugu jiro murashaxiinta ka mid oo farmaajo la yidhaahdo oo in la tartamana aan rabin doorasho nadiif oo hufan in la galana aan rabin ayaa naga mid ah ninkaas marka waa iska qabasho waa annagu waxaan ninkaas u haysanaa nin dambiile ah faldambiyeed galay gacmihiisa dhiig uu ka qubanayo saxna aysan ahayn in uu tartamo oo baabkii tartankiisii dowladnimadii uu soo xiray asaga dhankiisa ah ayaan u haysanaa waxaa soo haray nagu waxaan wadno waa ixtijaajaad oo silmi ah mudaharaad iyo banaanbaxyo nabadeedaan wadnaa aanu ku doonayno dowladnimada iyo dimuqraadiyadda inay ku taaba gasho mana joojinayn waa wadayna waa xaq dastuuriya oo annagana aan leenahay qof kastoo muwaadin oo soomaaliyeed inuu leeyahay shacabkii soomaaliyeed ee soo banaanbaxay boqolkiiba boqol aad u mahadsiiyey madaxweynuhu wuxuu ku doodaa shacabka aniga rabaa shacabka dhammaantood anay i taageersan yihiin haddii marka shacabku asaga rabaan oo ay taageersan yihiin shacabka xolaha ka dhigo baabuurtan iyo jidadkan u xiraayo ha dhaafo berri markii inteena 30 qof 40 qof 50 qof 100 qof aan dhaafi weyno dadka aan soo bixin aan dhaafi weyno markaas waxay cadaanaysaa rabitaanka shacabku inay madaxweynaha raacsan tahay iyo inay dadka ka soo horjeedaan ay raacsan tahay laakiin haddii uu madaxweynuhu uu ciidanka iyo caburinta waxa uu isticmaalaya loo jeedo macnaheedu waxaa waaye rabitaanka dadka kuma joogo dalkana kumana xukumi doono waxaan ka rabnaa madaxweynaha ama madaxweynaha xilkiisa u dhamaado waxaan ka rabnaa farmaajo in haddii shacabka asaga uu rabo iyo hadduusan rabin shacabka xorriyadiisa uu dhaafo shacabka asagaa cabiraya asagaa hadlaya hadalka dadka iyo xorriyadoodii midkooda hala dhaafo beesha caalamka waxaan rabnaa waan u jeedinaynaa waxa uu farmaajo samaynayo waa ogyihin waana u jeedaan inay ku fiirsadaan sax maaha inay ku garab galaan sax maaha inay ku dhiirigeliyaan sax maaha maxaa yeele hadday ku fiirsadaan iyo hadday ku dhiirigeliyaan taas macnaheedu waxaa waaye waxa uu samaynayaa dictatornimada ah oo xorriye ku tumashada ah inay raalli uga yihiin ayay macnaheedu tilmaamaysaa waxaan usoo jeedinaynaa shacabka soomaaliya siday shalay ugu hiilin jireen uguna soo hiiliyeen maantana waxay u hiiliyaan hiilay uga baahan yihiin hiilkay uga baahan yihiin waxay tahay dowladnimo u taabagasha iyo xorriyaddooda iyo dimuqraadiyaddooda in la taabageliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله
dhammaan waa salaamantihiin dadkii hadalkooda la dhamaystir lahaa ama laga hadli lahaa ma ahan laakiin waxaan rabaa dhowr qodob yar inaan idiin sheego midda koowaad waxaa wixii dhacay waxa dhacay waxay ahaayeen mudaaharaad laysu istaagay maya ma ahayn waxay ahaayeen isku day dil dhammaystiran bay dadkaan aqaani waxaan u sheegayaa ciidanka markii la tababarayo waxaa lagu tababaraa xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto xabadihii maayida laga riday hotelka lagu ridayay rag baa la rabay oo u qoondeeyay farmaajo inay ku dhex jirto oo labadii madaxweynaha hore iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay ugu horeeyaan xabadihii shalayta la ridayna waxay ahaayeen xabado loogu talagalay inay dadku dhex jirto askariga waxaa la baraa waa idinku celinaya xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto dadkii mudaaharaadayay oo ra-iisul wasaarihii hore ugu horreeyey ayaa loogu talagalay inay ku dhex jirto waxa dhacay marka waa isku day dil dembi caadi oo dowladaha qofka caadigaa lagu dacweyn karaa qofka aan lagu dacweyn maayo amarkaas qofka bixiyo farmaajaan ku dacweyn taasi waa qodobka labaad waxaa weeye markaaga inaad hadasho qofka ku jira markaaga inaad xukuntana ma ogola fagaarayaalay ka hadlaan fagaaraan rabna inaan ka hadlo fagaaraha hadalkiisa qofka hor istaagay in inta doorasho ay dhacdo oo sanduuqa looga adkaado xafiiska lagala wareego waa aqbali kara shalayta waxaa la diiday daljirka daahsoon in lagu qabto banaanbaxa kaltanka daljirka daahsoon ninka diida kaltanka villa soomaaliya laysu badbedelayo ee asaga uu ku yimid ma aqbala qodobka xiga waxaa u yahay mudaaharaad qofka aan u adkaysan karin oo in asaga loo mudaaharaado maahayn aan aqbali karin qof kale inuu mudaaharaado uma adkaysan karin in qof kalena la doorto waxaa soo dhaco idil waxaa looga jeedaa marka in arrimaha lagu hor istaago nuxurku waxa uu yahay dal aan mudaaharaad ka dhici karin doorashada ka dhici karta 17 September iyo doorashooyinka iyo maamulada iyo isu yimaadaan ayaan marar badan maqalnaa internationalka aan ka maqalnaa meelaan lagu mudaaharaadi karin iskuma dooran karo ilaa mudaaharaadida aan damacsanaa ay meel ka maraan dalkaasi waa in la xaqiiqsado qof kasta oo xaaladaha Soomaaliya ay khuseeyaan in wax doorasho ka dhici kara aysan jirin haddii mudaaharaad xor ah oo xalaal ah uusan ka dhicin midda sii hartay waxa ay tahay dowladda ka soo shaqeeyay dowladda aad wax u fahamsan dowladda taageeradu ka dhamaatay iyo madaxda dowladda dadkooda ay diidan yihiin oo isku mashquulaya masawirkaas iyo masawirka dowladdiisa oo kala jiro aysan dowladdiisa u muuqan inay taageersan tahay nidaamka difaaciyiinta taas waa fariin aan u dirayo diblomaasiyiinta masawirka dowlad markaa taa diblomaasi waxaa la kala jaraa dowladdaada iyo dadkaas ama dowladdaas la diiday kelimada ugu dambaysa waxaan u jeedinaynaa aniga saaxiibaday ciidamadan u jeedinayna laba arrimood u sheegay horta ninka amarka idin siinayo nin sharciya ma aha waqtiga oo ka dhamaaday maslaxad qaran iyo mid dal iyo danguud oo ku maqan yahay amaradiisa ku cadan yihiin ma jirto dada xoogaas in la dilo rabaa dastuurka lagu tutoo rabaa dadku inay iska hor yimaadeen rabaa dowladdu markay dunto ciidamadu ma dhisnaadaan laakiin dowladdu markay dhisan tahay ciidanku dhisan yahay marka inuu ku amrona xaq sharci u mara waxa uu ku amrayana danguud ku amraya inaa ka diidaa kuwasi waa maxsanti